السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal channelkan waa channelkiina magacaygu waa Mr. Hiibe muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa qisada iyo mowduuc ku saabsan sheekadii ninka loo yaqaano James Hollis ninkaas oo ahaa nin hadda ka hor iska haleeyay amaba tuuray oo qashinka ku daray haadhiska ay ugu jireen bitcoin dhan 300 milyan waxaan filaya inaad isweydiinayso sidee ku lumi kartaa lacag qadar intaa leeg 300 milyan haddaba su-aalahaas iyo sheekada ninkani waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkeena maanta nala sii joogi lahaa dhammaanka muuqaalka haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir haddaad hore noola joogtayna muuqaalka leeg noo saar mahadsanid sannadu markay ahayd 2009 waxaa jiray nin la oran jiray James haddaba James Hollis oo ku noolaa magaalada Newport dalka UK James waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo hadda uun ka baxay markaasi jaamacadda loo yaqaano IT technicianka haddaba ninkan ayaa waxa uu aad u jeclaa kulliyadan loo yaqaano IT technicianka amaba inuu mar walba tijaabiyo tiknoolajiyada cusub haddaba ka hor 2009 taariikhdu markay ahayd 2008 hal sano ka hor ayaa waxaa soo baxay lacagta loo yaqaano bitcoin ee digitalka haddaba ninkani ayaa waxa uu bilaabay in uu markaasi ka faa'iideysto taariikhdu markay ahayd 2009 waxa loo yaqaano bitcoin isagoo rabaa in uu ka faa'iideysto lacagtan digitalka oo isla maalin uun waa laga yaabaa in ay kacdo sidoo kale dadka badankooda ma aysan fahansaneyn qaarna waxayba u haysteen wax lagu qoslo balse ninka loo yaqaano James haddaba ninkan James waxa uu bilaabay in uu midan aad u xiiseeyo sababta waa inaga hore u dhahan ninkani tiknoolajiyada aad ayaa uu jecel yahay wuxuu tijaabiyey wuxuu bilaabay in uu soo gato kombiyuutar cusub si uu u qodo mine bitcoin intaas ka bacdi ninkii waxa uu bilaabay in uu si adag uga shaqeeyo bitcoinkii waqti iyo dadaal iyo juhdi intaba uu geliyo maalmo gudahood waxa uu urursaday ninkii James ahaa 7,500 oo bitcoin haddaba waa 7,500 oo bitcoin laakiin waxay ahayd lacag markaasi aan lahayn suuq iyo sidoo kale kala bedelasho toos ah yacni inaad qof kale ama lacag kale aad kaga bedelan karto qof kale ma aysan lahayn keliya waxa ay ku koobnayd in digital ay tahay online qof walba uu qofka xiiseynayaa uu markaasi qodan karo oo kaydsan karo haddaba sanadu markay ahayd 2010 ayaa ninkii James ahaa waxa uu ogaaday in bitcoinkii uu korukac sameeyey sidoo kale waxa uu ogaaday in 2010 isla sanadkaasi bitcoinkii lagu isticmaalay laguna iibsaday dalka Mareykanka gudihiisa nin ayaa 10,000 oo bitcoin ku iibsaday 2 xabo oo biisa haddaba arrintaas markii uu maqlay ninkii James ahaa waxa uu bilaabay in uu isaguna sidoo kale waqti geliyo bitcoinkiisii haddaba maalmo yar gudahood ninkii James ahaa waxa uu bilaabay in uu markaasi gurigiisa xaadho oo uu nadiifiyo intaas ka bacdi waxa dhacday in haadhiskigii iyo markaasi qalabkii u yaalay ee ugu jiray bitcoinku uu qashinka raaciyo si lama filaana isagoo gurigiisa hagaajinaya ayuu hal mar qashinkii raaciyay ninkii isla sanadkii 2010 bitcoinka ka lumay ninkaasi waxa uu dhigmayay 7,500 oo bitcoin laakiin haddii lacag dollar ahaana loo bedelo noqonaysa 300 milyan oo dollar waa lacag aad u badan runtii haatan ninkii James ahaa tala ayaa ku cirtay haddaba ninkii James ahaa waxa uu bilaabay inuu isku daygiisii sida u soo celin lahaa uu ku dhaqaaqo oo ma uusan quusan oo wuxuu isku dayay in uu maamulka magaalada ee Newport ku qanciyo in loo ogaado dibna loogu soo celiyo oo qashinka markaasi dib loogu faago qashinkan ayaa wuxuu ka kooban yahay ciid iyo sidoo kale baca iyo waxyaabaha qashinka wad garanaysaan kulli tingi oo la soo tuuray ayuu ka koobnaan karaa haddaba ninkan waxa uu dalbaday in meeshaasi loo foqo lacagtiisiina markaasi loo soo saaro dabcan waa lacagtiisi sababtoo ah haadhiskii waxa kaga jiray lacagtii dhannayd ee markaasi digitalka ahayd ee loo yaqaano bitcoin haddaba saaxiibayaal qisada James ayaa waxaan ka baranaynaa in mararka qaar fursadaha ay qurux badan yihiin bitcoinka ugu horreyntii waxa uu ahaa mid aad iyo aad markaasi aan loo tixgelin dadkuna aysan wax badan ka fahansanayn ilaa uu dambeyntii uu ka noqdo mid dadkoo dhan ay raadinayaan oo qofkii hal mar gacanta ku dhiga hal bitcoin uu noqonayo qof taajir ah hadda waa hal bitcoin maantadan aan joogno 2025 halkii bitcoin waxa uu marayaa ama uu kuugu taagan yahay hadiiba aad haysato qiimaha halkii bitcoin hadda waa maantadan aan joogno taariikhduna ay
bishii sideedaad 2025 bishii sideedaad waxa uu marayaa 111,000 hadda waa halkii bitcoin ayaa maraya 111,000 oo doolarka Mareykanka runtii waa farqi aad u weyn marka loo eego bilowgii waxa uu ahaa $0 oo macnaha lama qiimeyn jirinba haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta intaas ku egyahay muuqaalka xigeenka kulmi doono waxaan rajeynayaa inaad nagu soo beeri doonto haddii aad nagu cusub tahay haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka leegna saari doonto aragtidaadana aad qaybta faalada nagula wadaagi doonto iyo haddii aad rabto muuqaalka xiga waxaan ka samayn lahayn waad nagula wadaagi kartaa mahadsanid